maaliyadda master Samaale waxa kamida wasiirkii hore arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde waxa kamida wasiirka hadda qorsheynta awowgeen qabo waftigaasi aad buu u ballaaran yahay waftigan waxaad ka muuqataa inay heer qaran labeentii iyo dadkii sharafta lahaa ee Soomaaliland oo dhan uu gudoomiyuhu wato waxay ka marxaati kacaysaa taageerada xisbiga kulmiye ku leeyahay degmada Yagoori waad arkayseen guumays wixii ka dhacay la sacanood bayna sugaysaa waxayna sugaysaa degmadii Arcadeeye waxayna sugaysaa Caanjiid waxa laynagu sugayaa la sacanood taasi waxay ka marxaati kacaysaa taageerada ballaaran ee xisbiga talada dalka ee kulmiye ku leeyahay gobolka Sool jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan taageero badan u haysta haddana waxaan doonayaa in hadalka ku soo dhaweeyo si uu milgadiisa iyo furitaankiisa maayarkiina awoodda badan Iidle Xuseen Xaaji Maxamuud oo ay maanta marti u tahay dhammaan xukuumaddii xisbigii madaxdii qaranka ku soo dhawow Iidle Xuseen garaadka beesha dhulbahantee guud garaad jaamac garaad Ismaaciil dadweynaha degmada Yagoori rag iyo dumar dhalinyarada isboortiga ciidanka qaranka ciidanka bilayska bahda saxaafadda cuqaasha ninkarboodka waxgaradka dhammaan deegaanka degmada Yagoori waxaanu idinku soo dhawaynaynaa si sharaf leh soo dhawaada ayaanu idin leenahay ku soo dhawaada degmada Yagoori oo idinku soo dhawayn jirtay si farxad iyo xushmad iyo heer sare ah oo milgay iyo maamuus leh haddana intii baanu idinku soo dhawaynaynaa intii baanu haynaa la taaganahay nabadgelyo wanaag sharaf iyo maamuus ku soo dhawaada nabadgelyo iyo rayreen ku soo dhawaada waxaanu idin leenahay deegaanka Yagoori wixii uu yahay waa la idinka warramay oo agaasimiga horeeyay ayaa ka warramay waxaan hadalka ku soo dhawaynayaa Maxamed Cabdi Maarik oo halkaa uga yimi soo dhawaynta degmada Yagoori oo maalintii ugu horeysay ee uu dadna deegaanka u dhashay oo ku maamuusana rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin muddo ka dambeysay markii wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay gobolka Sool seexdeen oo Muusabixi ka mid ahaa ujeedada ay u yimaadeen waxay ahayd inay dadka Sool ka taageeraan qaadashada kaadharka iyo isdiiwaangelinta maantana waxay u socdaan inay dadka Sool gacan ka siiyaan sidii ay u heli lahaayeen kaadharkii doorashada ay xaq u lahaayeen tan iyo tii horeba waa uga mahad celinayaa waxaan kale oo dadka reer Sool u sheegayaa wafdidan miisaankan leh ee halkaa ka muuqda ujeedada ay u socdeen culayska ay leeyihiin bay ka muuqataa sharaf gaar ah bay tahay oo si gaar ah u xuseeyaa inaan halkaa ka arko abtiyada Cali Waran Cadde iyo ninka la yiraahdo Cawil iyo waxay qabo iyagana si gaar ah u soo dhawaynayaa ku soo dhawaynaya garaadka guud ee deegaankan gobolka Sool kana jooga garaadadii gobolka u dhashay kana wakiila aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya dhammaantiin sida wanaagsan aynu u soo dhaweynay waftigan oo runtii magaaladan Yagoori ay taariikh gaar ah leedahay taariikhda maanta nabadda deegaamada oo dhan iyo hawlihii Yagoori oo ahayd meeshii ugu horeysay hooyadii gobolada bariga oo muddadii ay xukuumaddu fadhideen waxyaalaha runtii ka hawlgalayna aad garanaysaan waxaan maanta xasuusinayaa xukuumadda cusub ee soo socota iyo muxuu ahaa ta joogtaba Soomaalidu waxay ku maamaadaa amba faydniyo waxba hay farin Yagoori waxaan u malaynayaa waad ogtihiin taariikhda ay ku leedahay gobolka Sool iyo gobolka Xaysimo iyo ilaa Buuhoodle iyo dadka degaba waxaan ku leenahay mudane madaxweyne musharax soo dhawow reer Yagoori waxa weeye waa dadka qalbiyada furan waa dadka diyaarka ah waxaa la sheegay ambulance hadda ka horna halkan lagaga dhawaaqay inkastoo aanan jeclayn inaan ka sii hordago laakiin mar haddaan hadal ku soo noqonayn Daar es Salaam baa laga sheegay ambulance-tina waa la idin wadaa xukuumaddu waa idin wadaa musharaxii madaxweynuhuna waa marayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
waana isu soo noqonaynaa kaar qaadashaduna waa muhiim weeye waa wixii markii horeba aad u badheedheen idinkoo aan waxba hayn maanta aad madax tihiinna waxaa la doonayaa kaarka inaad qaadataan wasiirkii hore arrimaha gudaha ahna la taliyaha madaxweynaha cali maxamed waran cadde anigu gobolkan iyo gobolladan kuma cusbi waxaan ahay nin waayo aragnimo dheer u leh waxaan ilaahay ugu mahadinayaa sidii gobolladana baryaha qaarkood ay ahaan jireen iyo maanta quruxda iyo wanaagga ka muuqda oo wax ilaahay loogu mahadiyaa oo waxa bulshada deegaankan loogu mahadiyaa ayaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaanu nahay wafdiga kan waxaannu soo marray tuuladii loodhan jiray guubays oo loo bixiyey daarasalaam aad iyo aad baan qiimo badan bay u leedahay waananu ku faraxsannahay waxaan garanayaa oo aan aqoonsanahay dhirta ku taallee tirada yar inta u dhaxaysa muxuu ahaye caynaba iyo guubays geed aanaan galab carrow ku marin ama aan waagu noogu baryini ma jirto annagoo shacabka reer soomaaliya doonaynu baggooda burcadsu marino maantana midhihii waa kaa aynu guranayno ee quruxdiisii aynu aragno waxaan jeclay inaan xuso halkan waxaa nala socda garaad jaamac garaad ismaaciil iyo suldaan maxamed suldaan barre waxaan jeclay labadaa ninaan wax yar idinka sheega taariikhdooda iyo aabbayaashood garaad ismaaciil wuxuu u dhintay oo uu ku geeriyooday warwarkii hayey isagoo dhallinyara oo aan gaboobin xanuunnadii uu ka qaaday sidii dadka walaalaha uu isugu soo jiidi lahaa ee dhibaatada iyo xanuunku ka soo maray ayuu ugu geeriyoodo markhaati baan ka ahay aakhiro marka la isweydiinaya haddii alla yidhaaho maantana wakaa inankiisala guntan ee ina dhex hordaya maadaama aanu soo gallay carrigii garaadada iyo isamada wakaa isagoo hormoodka maanta ka ah ee maantana ina dhex socda waxaa nala socdaa suldaan maxamed suldaan xasan barre oo aan garanayaa bii halkii uu ku geeriyooday dooxa dacarbuuq may ahayd waannu soo soconnay gurmad baanu ahayn waxaanu ku soo soconnay meesha layidhaahdo ceelaf waxaanu soo soconnay hortaynu soo dhaafnay may og dooxii dacarbuuqoo daamaha maraya laba daafood maraya ayaannu iska taagnay waan yar baqay anigoo waxaan waa bulukaada suudaan wuxuu yidhi war waagu intaanu beriyin ayaynu ka gaadhaynaa aan jiidna dooxa dabeedna markaanu daf nidhi ayuu la booday isagii aniguna dib baanu yar carruuban waayo haddee nabad galay halkii baanu kaga nimid suuxii waagu wuxuu noogu beriyey oog isagoo daadki qaaday waxay u socdeen nabadgelyada iyo dadka walaalaha ah sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen waxay u halgameen u dhintay ilaahay jasaa'igooda ha ka siiyee si wanaaggaa maanta aynu marayno iyo sidaa maanta aynu nahay in bulshadanu gaadho waxaan leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa colaad iyo abaar nabad iyo caano waxaan ka shakisanahay inkastoo imka aynu ka baxnay waxaan soo marnay dariiqa waddada hareeraheeda waxa yaalla oo ka dhisan buulal aad iyo aad u fara badan oo dad masaakiini ay dhex fadhiyaan oo xoolihii ka baxeen waxaan leeyahay ilaahay wuxuu inoo soo celinayaa nabad iyo caanihii dunuubtii horeynu kala gallayna alla wuu inaga jaray ilaaha inta damba noo naxariisa baanu leenahay ilaahow roobka noo shub ilaahow boggeenna burcadisu mari ilaahow dadkayga walaalee allahda waxay isu yihiin tus nin halkan aan ku soo dhaafno oo baaskilo fuushanaa oo la riixayay daarasalaam ayaa wuxuu yidhi aabbihiin iyo hooyadiin ma garanaysaa macnaheedu waxa weeye dadkanu waa isu aabbiyo hooyo inankow dhallinyarada ahow inanta dhallinyarada ahay
waxaa halkanna ka soo jeeda hooyada halkanna aabbahaabaa ka soo jeeda markaa sidii aabbaha iyo hooyadaa ay isugu marlaydin badgooda burcad isugu maran lahaydeen ayaa dhallinyaro laydinka doonaya sidaa isugu soo dhoweydeen baa ayaa laydinka doonaya maantana waxaanu wadnaa dimuquraadiyadda halkaynu maranayn madaxdii la isbedelo madaxweynaheennii ama madaxweynaheenna maanta joogaa waxaa ogtiin 10 sano u lahaa isagoo jecel in dhallinyarada nabadbeddesho oo dadku xukunka u sinaado oo aan la iska fadhiin teeramkiisii wuu soo gaabiyey 10kiisii sano 5 sano ka dhigay 5tii sano raggii uu uga degay baynu wadnaa waxaynu jecelnay iyagana inaynu sidii aynu kursiga u saari lahayn inaynu falogeed qabanno oo ah in kaararka la qaato xisbigiinnana aad soo sharafteenna ugu ridaan waxaa kaloo soo socda ku bishaaraynayaa dadka aan soo marray ee waddada hareerada yaalla xisbigu wixii karaankiisa ah ee biyeeye baada waa loo soo wadaa maanta u imanaysaa waa halkaasaynu ugala soo dhowaannaa intayna waxu hadheenna waa inaynu caawinaa dadka dawladda iyo shacabka wasalaamu calaykum waraxmatullah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan shacabka ilaahay baa mahadle maanta nabadqab halkan isku keenay iyo caafimaad reeyagoori dadaalka aa u gasheen soo dhowaynteennada iyo sidaa u majiiran tihiin iyo kalgacalka iyo xamaasdaan ugu soo dhowayseen anaa ku hadlaya magaca wafdiga aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr hadalka nuxurkiisii waxaa dhameeyey cali waran cadde oo hadalka iga horreeyey hal qodob baan idinku darayaa kaar bixinta kaarka la qaadanayo dad badan baa haddii ay ka luntay warqadii yareeda la siiye laga yaabaa inaanay teginba meesha oo idhahdaa warqadda baa iga luntay hadday warqadii kaa lunta kaarkaaga waad helaysaa waad tegaysaa goobta waxaad sheegaysaa magacaaga oo afaran iyo telefoon haddii lagaa qoray kabacdina waxaa leegayaa sawirkaaga iyo muuqaaga sidaasaad ku helaysaa ee qofka warqaddu ka luntao ha u qaadana inaad waayaysaa xaqa kaarka codbixinta laakiin waxaad daba taalla kaarkaad maanta qaadata hadduu kaa lumo codayn maysid taasina way daba taallaa intaasi waa kaarkii aqoontiisa cali waracadda wuxuu ka hadlay nabadda iyo guuri waxay ku tilmaaman tahay meelihii ay ka hirgeshay dowladnimada qarannimada somalilan 93kii markii lasoo xulaayey golayaashii wakiilada iyo baarlamaanka ee ugu horreysay 93 bishii agost ayaanu halkaa nimid waxaana hogaamiyey axmed cabdi gaase axmed hoolif oo berigaa xoog ahaa oo berigaa nin xooga oo ku boodina fulisanka ahaa ayaanu halkaan iska raacnay isagaa qaaday calanka somalilan laascaarood baanu ku galnay mudaharaad baa xagga hore oo xoog inaga hor yimid waa ka wareegnay waxaan degnay huraalkii in xaaji cilmi lahaa saasaanu ku soo xullay labadii gole ugu horreeyey ee fagariya ka mid ah rag badan oo loo naxariista noqda berigaa maalintaasay somalilan calankeeda u qaaday yagoori maanta wataa guushii haysa ee somalilan ku midowday ee ay ku nabadowday ee aynu taladii reer yagoori laysku wada raacay aad iyo aad bay taariikhda iyo somalilan mataana abaarkeeda ku haysaa socod baanu nahay hadal badan dhergeli mayno mar labaad aad iyo aad baa mahadsantihiin marka u horeysaa haddaad tuula samakaabtiin waa idin salaamaynaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sida xamaasadda leh maxaa to aad iyo aad
xiisaddu ku jirto iyo xamaasaddu ku jirta aad noo soo dhowaysaan aad iyo aad baannu idinka mahadnaqaynaa waannu aragnaa dadka waannu kala naqaanaa deegaanka waa naqaanaa dadkeeda waa naqaanaa sida ay mataqaanaa xaaladoodu tahay iyo caadifadda iyo kalgacaylka ay u hayaan xusbiga kan mid la isku raacsan weeye way muuqataa muran kuma jiro taas waa taa ta kale halkan de waad aragtaanoo waxaa maraya wafdi ballaadhan oo ka kooban xusbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa iminka dalka ka talisa waxaa hoggaaminaya madaxweynihii sidaad u tiraaheen mustaqbalka muuse biixi cabdi ayaa hoggaaminaya miisaanka uu leeyahay culayska uu leeyahay dhammaan wasiirradii hore mataqaanaa xukuumadihii hore ku jiray raggii ugu miisaanka weynaa wasiirradii maaliyadda wasiirradii arrimaha gudaha dhammaan halkanay marayaan xusbiga iminka iyo xukuumaddana sidaasi leeg halkanay wada marayaan maxay tood intiisii ugu tunka weynayd waxaa loo socdaa waxa weeye oo aanu halkan u soo boqollay in dadka lagu wacyigeliyo la xasuusiyo lagu dhiirigeliyo in waa tii laysdiiwaangeliyey dad badan baa magaaladan iska diiwaangeliyey aagaga kale iyo tuulooyinka dhadhow iyo meelaha kan dad badan baa iska diiwaangeliyey in kaadhkii la qaadanayo ololihii kaadh qaadashadu inuu inoo bilaabmayo berritaa la furayaa la daah furayaa bisha 12keedana wuu inoo bilaabmayaa kaadharkii in la qaato halkana xafiis siduu ku imaanaya qof walba meeshii aad iska diiwaangelisay ayaa tegaysaa oo qabanaysaa qofkii aan awoodi karayn waxaynu isku dayi doonnaa intaynu ka gacan qaban karno inaynu ka gacan qabanno gaadiid aan u keenno si kale aan u taakulayno waa inaynu u diyaar garownaa inaynu kaadhkii qaadanno qofkii aan maanta kaadhkaa qaadan codkiisii khasaaru noqonaya waxaan kaloo idiin sheegayaa haddii ay dhacdo in kaadhkii in rasiidhkii maalintii aad isdiiwaangelisay aad qaadatay inuu kaa lumay ama qof kale kaa qaatay ama uu kaa gabooboo kaa jeexjeexmay dhibaata ma jirto weli waad qaadan karaysaa kaadhkaagii waxaad samaynaysaa goobtii aad iska diiwaangelisay baad tegaysaa magacaagaa lagu weyddiinayaa telefoonkaagaa lagu weyddiinayaa nambarkiisa intaa marka lagu weyddiiyo kombyuutarkaa soo saaraya sawirkaagii dabadeedna kaadhkaagii waa lagu siinaya waayi mayse kaadhkaagii taa in la wada xasuusnaado halkanna dib baynu isugu soo noqon doonnaa marar badan baanu qaabka aynu hawshaa innagoo iskaashanayna dhammaanteen uga hawlgeli lahayn aynu ka tashan doonnaa waxaad og tihiin dawladdan waa dawladdii waxqabadka dawladda dambe ee kulmiye ee soo socotaana waa waxqabad waa sidaasi leeg way jirtay in tuulada magaalada tani loo dhagax dhigay MCH health post baa halkan kooraha kan baa loo dishay wuu imaanayaa dawladdu waa istaba socotaa dawladdanu inay xukun ku soo noqonayso waa og tahay waana dhisaysaa haddii ay marka ka gaadhsiin weyday way dhisaysaa waad ogtiin labadii bilood ee u dambeeyey waad ogtiin 2 MCH baa laga dhisay deegaankan soo ma ogidin sidaa yeeyna mid laga dhisay soo ma ogidin gambadhana mid laga dhigay soo ma ogidin taruuna waa daba socotaa waa la dhisayaa mataqaanaa ka quusanina ma aha inay saa ku dhammaatay waxaas maanta aanu keennay oo guddoomiyuhu keenay guddoomiyuhu yidhi waa in la geeyaa oo yidhi haddaan la geyn dhulkii aan ballanqaadada aynu ka samaynay berigii dhoweyto tegi maayo ee dawladdu waa inay geysaa ambulans cusub baanu keennay iminka maanta oo igoo jooga oo qofka cusbitaal lagu geeyo ka miyi ku xanuunsada ka dhibaata meel ku qabsato lagu raadinayo lagu soo qaadayo telefoonka unaad soo diray soo odhanaysa ambulansti ha lay soo diro ambulansti waa idiin wadnaa dadka wixii xeryaha qaxootiga ee ku jira mataqaanaa bahalkii dadkii xooluhu ka baxeen raashin iyo biyaba maanta waa u soo socdaan labaduba waa u imaanaya dawladda tanu waa dawlad dadkeeda xanaanaynaysa jecel u shaqaynaysa u dadaalaysa waa dawladdii dadkeeda daryeelaysa weeye sidaa ula socda kulmiye cid la tami kartaa ma jirto deegaankana lama tartami karto waxaanu idinka mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee noo soo dhowayseen
ee xamaasaddana waa ku mahadsantihin hadalkii waxaa dhammeeyey wasiirka daakhilka hadalka nuxurkiisu intaasuu noogu leeyahay mar labaad waxaan idinku mahadnaqaynaa sidaa noo soo dhowaysaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa midna waa idiin sheegaynaa laba kala cabanaysaa waa inta isu jirto xukuumadda in laga cawdo in loo xaal sheegto in wax la xusuusiyo intaba waa diyaar waayo xukuumaddu waa qarankurayda ka mas-uula halkanna waxaan islahaa maanta tuulo samakaab iyadaa ugu sad weyn somalilan waayo marka dawladda la qaybinaya wasiirada laga qaybiyaa wasiirkii ugu tuulka weynaa dawladda qaranka somalilanna waa reer samakaab markaa waxaan islahaa kuwa kala ha cawdeene iyadoo cabasho badan mayso xogayaha dawladda hoose xagga siciid cabdi sholof oo oranaya gudoomiyaha xisbiga aana musharaxa madaxweynenimo waad aragtaa sida la isugu soo baxay ciidii un baa dhaqaaqday marka hadal badan uma soo baxaya haddana waxaan ku soo dhaweynaya khadar axmed jaama waxaa halka kan sidaad aragtaan dadweynaha degmada adhacaddeeye isugu soo baxay soo dhowaynta xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxaannu idinku soo dhowaynaynaa awalan si niyada oo kalgacal leh oo sharaftiyo kalsooni leh baannu idinku soo dhowaynaynaa ku soo dhowaada oo soo dhowaada baan leenahay soo dhowayn dabadeed sidaaad og tihiin degmada tan adhacaddeeye waxaad u magacowdeen xukuumad ahaan muddo aan fogayn degmo ilaa iyo haddana wax tallaabo oo ka dhaqaaqay ma ay jirto sabab kastaba ha ahaatee awalan waxaannu leenahay waannu soo jeedinaynaa in degmadan degmooyinkii lala magacaabay waa hana qaadeen iyadana inaad ka dabageysaan insha allahu tacaalaa safarkiinnan iyo sodcaalkiinnan maanta oo ay hesho degmada tani wixii ay xaq u lahayd oo dhinac kastaba waxay u baahan tahay dhinac walba iyo wax kastoo ay degmo u baahnayd xaggay tahay jaanibka tacliinta hadday tahay jaanibka caafimaadka iyo jaanibka biyaha oo iyaga wax nooga bannaan yihiin cabdirashiid cabdi aabi waxaan halkan ku soo dhowaynaynaa guddoomiyaha xusbiga kulmiye iyo xukuumadda dawladda somalilan soo dhowaada degmadan adhacaddeeye gobolka sool ku soo dhowaada oo aad guddoomiye iyo xukuumadba u tihiin waxaad u timaadeen oo u socotaan oo aannu idinka reegaynaa daahfurkii
kaadh qaadashada gobolka sool iyo deegaankiisa dee adhi caddeeyana waad maqlayseen cabashada khudbaddii aniga iga horraysay idinka idiin taallaa waxaad ka qabanaysaa iyo waxaad ku daraysaanba sidoo kalena maanta oo kale waxba aad u kala caban maynee waa idin soo dhowaynaynaa soo dhowaada dalka iyo dadkaba ku soo dhowaada siinayaa kelmad garaad cabdulaahi maxamed guuleed kolley waxaan u malinayaa haddeer hadal dee badan halkan dee kama furra waa soo dhowayn kolley magaaladan adhi caddeeye waxaa deegaankeeda intii hore kaga soo kordhay oo aan u malaynaya halkaa ka muuqdaan haddii la istaago dhowr magaalo oo yaryar oo halkaas yaalla oo dad badan oo barakacayaala leh runtii cabbaar saaka aannu joognay dadkaas aad iyo aad bay runtii u cabanayeen xagga caafimaadka iyo xagga biyaha iyo xagga quudinta intaba wax laga yaabaa haddeer inaanay jaanis u helin odayaal badan oo halka fadhfadhiyaa inay ka hadlaan marka ka xukuumad ahaan iyo ka xisbi ahaanba waxaannu idin leenahay in kasta oo dee wakhti doorasho lagu jiro oo xaaladdu ay tahay dee kolley aanba faydniya waxba hay farin haddana waxaannu leenahay dadkaas aad ha loo ogaado runtii xaggii xoogayga cabaatinka ahaa xagga maaragtay qolada deegaanku ay muujiyeenba annagu dee deegaanadoo dhan baan runtii isimu nahay marba kii aannu joognona markaasaannu ka tirsannahay waxaan leenahay iyadana way dee kolley way idiin sheegeen oo bilmatal dee waa kolley waatay isay sheegeen dee si gaara in looga wada hadlo bay noqonaysaa waxaan rabaa inaan anigu ku soo gebagebeeyo haddaynu nahay dadweynaha reer sool sannadkan waxaynu hore umaynaan qaadan jirinin kaadhadh aynu ku codayno waynu is-ogayn sannadka waxaynu gallay diiwaangelin kaadhadh baynu qaadannay kaadhadhkaasi waxay ka dhigan yihiin maanta waxyaabaha lagu kala aarsaday ka dhigan yihiin ama qofku waxa uu doonayo ku soo saaro waxaanaan filayaa innagu haddeer xisbigan talada haya ee kulmiye intii uu hayey baynu somalilan ka mid noqonnay xusbiyada meesha maraya waxaan idin xusuusinayaa muuse biixi wakhtigii abaartii waa ninkii sool xaysimo xudun hawd waa ninkii intaa marayey markii boodhku marayey waddanka maantoo barwaaqada la yahay bay xusbiyadu wada socdaan laakiin muuse ilaa xaysimo cagihiisa ku tegey waynu dareensannahay labada xusbiya saddexda xusbi isku qiimo ma aha warsoosaa ma aha haddeerna waxaan ku soo dhowaynayaa wasiirka biyaha xuseen cabdiboos shacabka weyn sida sharafta le isugu soo baxay ee cuqaasha ningarboodka magaalada adhi caddeeye degmada adhi caddeeye isugu soo baxay sida sharafta le noogu yimi waxaan leenahay aad baan idiin salaamaynaa waana mahadsantihiin waan aragnaa runtii sida sharafta le aad u soo dhowayseen wafdida waa ku mahadsantihiin waxaan leeyahay wafdida waxay daaranayd anigu waan ka soo horreeyey wafdida waxaan joogay 2 habeen baan joogay waxay daaranay socdaalkeedu ama socdaalka aan de ku socday wuxuu ahaa sidii kaarka loo qaadan lahaa kaarkaasi waad ogtihiin wuxuu ahaa kaarkii aniguna aan London uga yimi intaan la magacaabin London baan uga yimi wuxuu ahaa dibudha waa ka maqnayn meesha sanadihii hore ama sanadii hore maynaan codayn jirin waa kii aad codka ku qaadan lahayn oo aad xuquuqdiina ku raadsan lahayn waxa weeyaan waxaan leeyahay waa wixii aad ku dooran lahayd xaqaaga oo aad madaxweynaha aad doonayso aad ku dooran lahayd cidda idinla dadaashay wax badan idinla qabatay kolley anigu waxba idiin sheegi maayo indhihiinna macallina dhowr sano ka hor halkii aad joogteen waan garanaynaa dadku sida ay meesha ahaayeen iyo sida u baabaasanayd iyo horumarka meesha ka muuqdana waa aragtaan midho geedka gacantaada ku jira kuwa geedka dushiisa saaran kolley looma daadiyo bay Soomaalidu ku tiraahdaa
waftida waan ka soo horreeyey laakiin sida aan xuraamiyey ama aan maqlay waxa weeye barakacayaasha xeryaha ku jira ee xooluhu ka dhammaadeen abaartu saamaysay halkaa kolley ciddii halka u joogtay degmada ayay wixii ay u sideen ugu dhiibayaan waxyaalo yararoo kale oo dadka disableka ah kolley laftooda waa ku jiraan oo iyana dadka curyaamiinta loogu talagalay kolley inahaas oo ay xisbigu murashaxa muuse biixi iyo dadkiisu magaranaysaa ay hawshiisa taageerayaashiisu ama dadka la socdoo dhami ay hawshaa kala qayb galeen ogaada wax weyn dee kolley hawshaasi waa hawl fiican wixii dambena waa la soo wadaa wax badan baa laga wada hadli doonaa insha allah waxaan ku soo dhawaynayaa guddoomiyaha xusbiga kulmiye darwiish dadweynaha degmada reere caddeeye ee maanta garaadadii iyo cuqaashii iyo ninkarmeedkii iyo hablihii iyo hooyooyinkii iyo carruurtii culimmadii baa isu soo baxay ee bacadkaa nagu sugaayey waa idinka mahadnaqaynaa jasaakum allahu khayr mahadnaq kadib are caddeeye hal qodob umbaan ka hadli waayo wakhtigaana golaana hadal badan la galo waxaan ka hadlayaa waa nabadda are caddeeye dhibaatadii ka dhacday weli inaanay dhammaan waa ognahay xukuumadduna nabaddii way ku hawlayd inay hadda dhammaysana way ahayd waxay naga soo dhex galeen hawlahan doorashooyinka kaarqaadashada abaaro hawlo badan baa inaga soo dhex galay laakiin waa mudnaanta koowaad haddana waa dhammaynayna xukuumadduna amarkaa way qabtaa waa fadhiyaa wasiirkii madaxtooyada wuu fadhiyaa wasiirkii daakhiligu wasaarada xooggoodu way fadhiyaan halkanna waxaa socda mustabiidkii wasiirada waxaa socda wasiirkii hore daakhiliga cali waran cadde oo ah mustabeedka daakhiliga cusub waxaa fadhiya kii wasiirkii hore maaliyadda oo mustabeed waa xukuumadda waxaa fadhiya raggii caawil ambasadar caawil oo ah mustabeedka xusuusinaya wixii ay qaldaan ee waayaaragnimo la jooga arrintaa insha allah waynu dhammaynaynaa waananu ku hawlanahay qodobka laga hadlayna kaarka hala qaato waa kii qaranka lagu dooranayey waxaananu isleenahay 90% kaarkaa waxaa la siin doonaa oo ayd ka codsanaa kulmiye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi walaalayaal goobtan aan caddeeye waxaanu maanta ku soo dhowaynaynaa madaxweynaha mustaqbilka dhow ee jamhuuriyadda somalilan muuse biixi iyo wafuuddu hoggaaminayo ee wasiirka madaxtooyada uu ka mid yahay maxamuud xaashi iyo wasiirka amniga qaranka aanu soo dhowaynaynaa iyo wasiirrada kale ee faraha badan ee hadda fadhiya waxaanunu ku soo dhowaynaynaa salaan kal iyo laable oo mas-uulnimadiinna iyo qarannimadayada shacabnimo intabaannu ku soo dhowaynayno waxaannu kale oo sheegaynaa inaannu u midaysannahay haddaannu nahay deegaanka gobolka soolba dhammaantii codbixinta iyo kaarqaadashada reer somalilan intaa markii aan dhaafo walaalayaal dadkan idin soo dhoweeyey maanta waxay u fara badan yihiin dadka deegaamada qaxootiga ku ah dadkaa waxaa haysta hawlo fara badan oo caafimaad xuga ka mid yahay baahi ka mid tahay biyola'aani ka mid tahay mas-uuliyiintii qaranka waxaannu leenahay dadka ha loo tago ha la kormeero ha la eego waxay qabaan wax kasta waxaa ka horreeya dadka dadaalkiisa iyo waxqabashada loo qabanayo waxaan leenahay mas-uuliyiintii qaranka aannu dooranayaan hore u doorannadow dadweynihii horta dhugta oo eega heerana caddeeye awalba taageerada kulmiye waa lagu yaqaanay halkeedii bay joogtaa way ka sii korodhay sow maaha aad bay uga sii korodhay way muuqataa maxaa ka sii kordhiyey waxaa ka sii kordhiyey waxqabadka iyo horumarka iyo sida xukuumadda iyo xisbigu degmadan ay wax uga qabteen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sidaad ilaa maanta bacadka u joogteen ee u taagnaydeen ee ugu samirteenna waannu idinka mahad celinaynaa walaalayaal waxaynu is odhan doonno way soo socdaan waxa ugu muhiimsanee waftiguu socday waa in kaarhka la qaato kaasaynu qaadan doonnaa insha allah sabtiduuna inoo bilaabmayaa waynu u diyaar garoobanaynaa annana waannu idinkala shaqayn doonnaa walaal waxaan idiin sheegayaa reerana caddeeyo deegaankaba xisbiga kulmiye waa xisbiga horumarka maanta dad fara badan oo deegaankeenna ah ayaa soo barakacay oo adha caddeeye iyo
canjiid iyo deegaankaba jooga xisbigu wuxuu ugu talagalay raashin baana iman doona ilaa berito waa loo qaybin doonaa insha allahu tacaala waana soo socdaa raashinkaasi waa damqasho xisbiga kulmiye uu damqaday dadka deegaanka ku nool qodobka labaad waxaa soo socda meesha kalena waa guumays baa iyaduna ku jirta waa saddexdaa meelood ee barakacayaashu joogaan taangiyadii biyahuna wixii la heli karo way soo socdaan idinka tegi mayno waan idinla damqanannaa dhibaatada deegaanka ku dhacday horena wax waa looga qabtay iminkana wixii awooda waa laga qabanayaa laydinma dayicin laydinmana iloowin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waynu isku dambayn doonnaa bacad baynu taagannahay meelo badanna waan idinka sugayaa waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi mar labaad magaalada ale caddeeye iyo degmadoo dhanba dadweynaheeda maanta cadceedda u taagnaa in badan inay soo dhoweeyaan ee weliba aad iyo aad noo soo dhoweeyeen si sharaf leh qadarin leh waannu idinka mahadnaqaynaa anoo ku hadlayo magaca wafdiga aad iyo aad baa u mahadsantihiin jasaakumullah khayr waa bacad meelo kaloo badanna waan sii soconnaa hal qodob baan doonayaa inaan xoogga saaro halkaa qodob waxa weeye nabadda ale caddeeye iyo dhibaatada halkan joogta ah ka dhacday la bogsiiyo xukuumadda arrintaa waa ka go'an tahay waxaa ka soo dhex gashay hawshan kaarbixinta halkan waxaa fadhiya wasiirkii daakhiliga ee hawshaa u xil saaraa iyo wasiiradii kale oo dhan waxaa naga go'aana maalinta kaarbixintaasi dhammaato haddii ilaahay yidhaahdo in hawshaa iyo nabadaynta ale caddeeyana loo fadhiisto oo ilaahay idabkii si wanaagsan lagu dhammeeyo waxaannu soo rajaynaynaa markay kaarbixintu naga dhammaato inay ale caddeeyo sideedii hore ku soo noqoto dhibaatay jirtay ilaahay idankii nabad iyo wanaag lagu dhammeeyo waa magaalo keliya waa dad aleeye ah waa dad wax walba isoo ah oo aan maaragtay kala fogaan karin oo xubaato weyn dhex geli karin hase yeeshee shaydaan baa ka adeegey qoyskan aqalka wadagan baa shaydaan ku adeegaa arrintaayna waan dhammaynaynaa xoog baan saaraynaa taa waxaa siinayaa muddaanta koowaad ta labaad kaarka markaad qaadanaysaan qofka uu ka lumay warqaddii rag ama dumar ee warqaddii iminka aan ahayn maalintii la siiyey wuu helayaa kaarkiisii yuu moodin waayo aanu kaarkiisa seegin waa tegaysaa magacaaga afran baa lagu weydiinayaa telefoonkaa lagu weydiinayaa sawirkaagaa la eegayaa waa lagu siinayaa laakiin kaarka dambe codbixinta haddaw kaa lumo codayn maysid waxaan rajaynayaa ale cadde dhammaan inay qaataan kaararkay oo ay kaararkooda soo wada qaataan oo insha allahu dee xisbiga kulmiyeer ay ku hubsan doonaan xigtiyo qoloqolo xoolaha qarankiyo
كليت حفظا حولها قرنكيو كليت حفظا gobol kale inuu kulmiyadii aanu yahay waa idinka muuqataa hadalka maanta la odhanayo waa intaa wax ka badanoo la odhanayaa ma jiro soo dhowaada daartirta raalli ka ahaada cidina sool hargeysa kama soo raacin mikrofoonke dadku waa reer sool waa reer laascaanood qof waliba waajibka u leeyahay una ku hadli doonaa oo qabsan doonaa magaalada horteedana inaynu isku qaybgelino maahe bal bannaanada innagu waxaanu soo aan isku dhinaane haynoo dambayso salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulmiyaana musharaxa madaxweynaha mustaqbalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa gobolka sool degmada lascaanood dadweynaheeda dhammaan isu soo hadhay rag iyo dumar isu soo baxay rag iyo dumar cirool iyo carruur ee soo dhowayntayada ilaa saacadda duhurkaa u taagnaa ee ilaa xalay soo jeeday ee magaalada dhowr kilomitir ka soo baxay ee haddana magaalada dhexdeed nagu soo dhoweeye nagu soo wareejiyey aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baanu mar labaad idinka mahadnaqaynaa waa mahadsantihiin waa wakhti kulul waxaanu kacay kelmadda mahadnaqa ah waa idinla joognaa waa iswaraysan doonnaa duqayda iyo waayeelka iyo qorweynta magaalada waa isu helaynaa wakhti dhallinyarada waa isu heli doonnaa xisbi ahaan garabka haweenka waa isu heli doonnaa wakhti garabka dhallinyaradana waa isu heli doonnaa waa kala boganaynaa waa wakhti kulul aad baa ugu mahadsantihiin soo dhowaynta mar labaad baan idin mahadnaqaynaa intaasaanu ku soo dhammaysanana maanta wasalaam